Ambad waxaa la baafinayaa gabar lagu magacaabo Siman Xuseen Iikar hooyadeedna la yiraahdo Faadumo Nuur Hindi. Siman saakay abaare 10kii barqanimo waxay ka ambatay xaafadda Nationka ee degmada Wadajir agagaarka Nation Link ay degan yihiin. Siman saakay 10kii barqanimo ama 4tii saac subaxnimo ayaa reerka ugu wardambeysay. waxaana rajaynaynaa dadweynaha ku dhaqan degmooyinka kala ah Wadajir iyo Dharkeenley in haddii ay arkaan gabadhaas ay ku soo xiriiriyaan waalidkeed qaasatan hooyadeed Faadumo Nuur Hindi oo ay ka heli karaan taleefan nambarkiisu yahay eberle xalshan 98 52 67. haddii aan idinku celiyo mar kale taleefan nambarka waa eberle xalshan 98 52 67. mar kale aan idinku celiyo taleefan nambarku waa eberle xalshan 98 52 67. waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa cid alaale ciddii aragta gabadha yar inay ku xiriireen hooyadeed oo runtii u walwalsan tan isaakena aan muxuu ahay meelna aan lagu sheegin. waa mahadsantiin. sidoo kale haddii muxuu ahay intaas wax ka dheeriya ama nambarada aad fahmi weysaan waxaad la soo xiriiri kartaan channelkeena Bin Hindi Official oo aad kala soo xiriiri kartaan WhatsApp nambarka uu yahay eber 254 748 92 40 79. waa mahadsantihiin. Ambad waxaa la baafinayaa gabar lagu magacaabo Siman Xuseen Iikar hooyadeedna la yiraahdo Faadumo Nuur Hindi. Siman saakay abaare 10kii barqanimo waxay ka ambatay xaafadda Nationka ee degmada Wadajir agagaarka Nation Link ay degan yihiin. Siman saakay 10kii barqanimo ama 4tii saac subaxnimo ayaa reerka ugu wardambeysay. waxaana rajaynaynaa dadweynaha ku dhaqan degmooyinka kala ah Wadajir iyo Dharkeenley in haddii ay arkaan gabadhaas ay ku soo xiriiriyaan waalidkeed qaasatan hooyadeed Faadumo Nuur Hindi oo ay ka heli karaan taleefan nambarkiisu yahay eberle xalshan 98 52 67. haddii aan idinku celiyo mar kale taleefan nambarka waa eberle xalshan 98 52 67. mar kale aan idinku celiyo taleefan nambarku waa eberle xalshan 98 52 67. waxaan si naxariis leh idinkaga codsanaynaa cid alaale ciddii aragta gabadha yar inay ku xiriireen hooyadeed oo runtii u walwalsan tan isaakena aan muxuu ahay meelna aan lagu sheegin. waa mahadsantiin. sidoo kale haddii